السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة ونكسر مالي ونكسر ملك السوداني ذيك شفتان أرسنال وحال نغياب سطح ولي بوحن سوق هذا دونا أخبارات كلا تاغيراش وغانريس وحال مركي غوري سول لابتي إيو وحيابي ياب كلا يسميين The Gunners baa xalan arkayo ciimamadati Arsenal xalis u madax degsta waayada u madax degsanin oo ayaantan Arsenal waxa lagu eedeynaya gool dhalis la'aantii inay ka liitaan laakiin xalay Arsenal 4 gool bay ku badiyeen taageerayaashooda hortoodu 4 gool iyo gool bay ku badiyeen laga seeto ka hor dhaliyay Pablo Mario difaaca baryahan maqnaayo gool ku turtay Nketiah oo gool ku turtay iyo Robi oo gool ku turtay afarta gool bay ku badiyeen The Gunners runtii markii ugu horeysay waxa uu ciyaaray kooxda Arsenal tan iyo June ninka lagu magacaabo Pablo Mario waliba goolkiisa ugu horeeyay buu durba Arsenal u dhaliyay 17 daqiiqo bis uu garoon ku jiray ninka waa mid kamid ah difaacada ugu fiican Arsenal markuu joogo Arsenal khatar bay leedahay maaragtay xalay taageerayaasha kooxda Arsenal oo taageer banooniga ka dhex daawanaya Emirates waliba Gunnar Solskjaer baa soo laabtay xal mujida waa taageerii caanka ee Arsenal Gunnar Solskjaer back baa leeyahay waa ninka bombala ku dhex jira waa taageeraha ugu caansan kooxda Arsenal maalod bay shaqada ka raacdeen laakiin hadda waa soo laabtay wax weeyaan Ozil baa mushaarkiisa ana bixinaya kadib waa uu soo laabtay gabi ahaanbo waxay xalay markii ugu horeysay muddo 9 bil kadib taageerayaasha Arsenal ay ku soo laabtaan garoomadu waliba 200,000 oo taageerayaal ayaa loo ogolaaday ciyaartii xalayo marka waa ka Arsenal taageerayaashooda xalay madax degsaday mid kale waxa leedahay taageerayaashu balaha Arsenal ka maqnaayo markii xal u soo laabtay taageerayaashoodu si fiican bay u ciyaareen mid kale Arsenal inay wada badiso dhammaan shanteed ciyaarood ugu horeeya groupka European competition waa tartanka Europe in Arsenal shanteed ciyaar ugu horeeya tartanka Europe ay badisaa waxa ugu dambeysay 2005 ogowna xilliga ka Arsenal waxay gaareen finalka Champions League marba hadii Arsenal shan ciyaarood groupka ay badinayaan waa markay finalku tagi jireen malaha sanadkan finalka Europa League u socdaan baa inoo loo maleynayo marba dad aragtay Arsenal shanteed kulan ay groupyada Champions League badinaya ama tartanka Europe gubiyahan badinaya Champions League waa la isku yiraahdaa ama UEFA Europa League waa la isku yiraahdaa tartanka Europe Arsenal oo badinaysa shanteeda ciyaar ugu horeeya ee tartanka Europe groupku waa xilliga finalku tagi jiray marka sanadkan wallo maleynaya mid kale Alexander Lacazette ayaa dhalay goolkiisa ugu horeeyay Arsenal muddo 67 maalmood kadib waana goolkiisa ugu horeeyay tan iyo September mid kale Arsenal oo qaybtood 3 gool dhalinaysa waa markii ugu horeysay xilli ciyaareedka kan mid kalena taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa xalay markay gudaha garoonku soo galeen ee 9 bil kadib garoonka ay ku soo laabtay waxay dalbanayeen in Ozil dib loogu soo celiyo kooxda Arsenal maxay Ozil ayaa lagu maagay inaan kooxdu lagu ciyaarsiinin oo Premier League uma ciyaaro kooxdu Europe League uma ciyaaro labada tartan waa laga saaray Ozil arima siyaasadeed baa lagu haystaa bad leedahay oo malaha shiinu baa ku yiri wariya Arsenal ay anigu dhaqaale baa idinku beelnaayay tayral badan wad nagu leediine ganacsina waa naga dhaxeeyay canuga Ozil noo gafaya malaha ciyaartu ka saara malaha Ozil in keedka lagu hayo yani inaan ba gabi ahaanba laga saar kooxda Arsenal waxa loo maleynayaa in waxaanu shiinu Arsenal oo shiinu pressure ku saareen Arsenal baa laga yaabaa oo Arsenal dhaqaaleeda fiirsanayso maadaama Ozil uu galay dawladda Shiinaha ku tilmaamay inay ku muslimiinta dhibay yihiin marka jamaahirtu Arsenal waxay leeyihiin walow in Ozil lagu soo celiyo ciyaarida kooxda Arsenal bay leeyihiin xalisaba lagu arkay